حضانة الفلاح. حضانة الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وجعل العلم نورا نهتدي به في طريقنا. السيدات والسادة الكرام، في هذا اليوم المميز نجتمع هنا لنضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من العطاء والرعاية، ولنبني صرحا يعزز الحب والعلم والاهتمام بأبنائنا الصغار. نحن هنا اليوم لنفتتح حضانة اليوم التي ستحتضن براعم الأمل في لذات أكبادنا، لتكون المكان الذي ينمي عقولهم، يزرع القيم في نفوسهم ويرسم على وجوههم البسمة. هدفنا أن تكون الحضانة بيئة دافئة آمنة تجتمع بين العلم وبين التعليم والمرح، تحت إشراف طاقم مؤهل يسعى لتحقيق أفضل النتائج التعليمية والتربوية، واطعين نصب أعيننا تنشئة جيلا واعدا واثقا بنفسه مستعدا للمستقبل مشرق بإذن الله. إمكن waxaan ku soo dhaweynayna ardaydeena la yiraahdo Afnaan Ismaaciil oo na akhrin doonta Qur'aanka. الرحمن الرحيم فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. waxaan hoos taaganayaa ama halkan fadhinaa waxa weeyaan mu'asasatu falaax ama jamciyatu falaax waa urur haween ah oo ka shaqeeya xaafadda Sheekh Cali Jawhar. waxay ka mid yihiin ururada haweenka ee bulshada u adeega ee magaalada Boorama. mu'asasadu waxay soo jirtay in badan, waxay had iyo jeer u shaqeysaa bulshadeeda, gaar ahaan qaybta hablaha iyo hooyooyinkooda. aanan markaasi waqtigu uu ka dhacay ama aanan helin horay fursad ay wax ku bartaan, waxay u taagan tahay bulshadeeda adeegeega, hadday noqoto wacyigelinta, hadday noqoto masaakiinta, hadday noqoto markaasi dadka danyarta ah iyo agoomahaba intii ay karto ayay u adeegtaa jamciyadu. waxay soo qabatay hore ayaan markaasi aan uga sheekaynay oo waxay noogu jiraan iclaanadeedii hore ee ku jiray Facebooka. waxay haysaa markis 3 markis baa hoos yimaada jamciyada oo kanan hadda dhex taaganahay ugu weyn yahay. maadaama ay inta markiska iyo dacwadda diiniga ka soo shaqeynaysay bulshadana ay waxyaabo badan u soo qabatay, waxay maanta fikir gaadhay jamciyadu inay soo biiriso qaybtan rawdatul anwaarka ciyaalka oo xadaanada caruurta tarbiyadda iyo barbaarinta, iyadoo weliba ku sidata inay markaa takhasus ku noqoto awlaadda tarbiyeynteeda iyo xagga akhlaaqada inay markaasi ka dhisto oo astaantaydu tahay inaan awlaadda ku tarbiyeyno akhlaaq wanaagsan si markaasi mujtamacu hoosta uga soo bilaabmo. waxaan haynaa bidaaya min caruur markasaan ku hayno waxaan haynaa ilaa 4 jir iyo hooyadii markaasi haween halkan idinka muuqda. inta u dhaxaysa ay ka shaqeysaa markaa markaskan falaax hoos yimaada. waxay nooga mid tahay xadaanadii 25aad ee ku soo biirta degmada Boorama, waana halka aasaaska u ah waxbarashadeena. waayo ilmaha yar ee naqan ee maxaan ku raaa laga bilaabo 3 jir 4 jir ilaa 6 jir intuu ka gaarayo dugsiga ee guryuhu meenu awal ku hayn jirnay, laakiin hadda way noo kordheen, waa la fahmay, waana meesha ay barbaarinta ilmuhu ay ka bilaabmayso. oo ilmaha yar guryaheena markay joogaan fariiso joog jeelu meenu ka dhigi jirnay awal, laakiin hadda waxay ku baranayaan halkan marka la keeno habkii ay bulshada ula noolaan lahaayeen, isdhexgalkii, qaabkii loo fariisanayay, tarbiyadii, isagoo wax fahmay oo ilmuhu de tacliin wax fiican helay ayaa ilmihii fasalkii koowaad la qorayaa, ilmo aad u carbisan oo la soo tababaray. waa jamciyad cariiqa oo xeel dheer oo muddo fara badan gobolka soo shaqeynaysay, waxyaabo fara badan oo bulshada u adeegana qabatay, hadday noqoto adaaxi, hadday noqoto ifdaaraad, hadday noqoto muxaadaraad, hadday noqoto waxbarasho hooyada iyo ilmaha waxa la barayo oo xagga diinta iyo dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsanba laga dhisayo. muasasada falaax oo kamida muasasaadka wasaaradda qorsheynta hoos yimaada marka dhinaca ururada laga eegayo arrimaha waxbarashada ay sameynayaan, sida uu sheegay wasaaradda waxbarashada hoos tegayaan. ururkii aanu bilowgii sharciyada siinayo maanta goobo waxbarasho sidan waa weyn oo bulshada ku soo kordhinaya farxad weyn bay noo tahay. waana tallaabo weyn oo qaadeen
tarbiyadu xilliga ugu muhiimsan waxa weeye waa sanadka koowaad ilaa 6 sano inta laga gaaray sida culimada tarbiyadu sheegan waa xilliga lagu beeri karo ilmaha qiyamka iyo mabaadi'da iyo afkaarta la rabo iyo waxyaalaha la doonayo ilmaha laga dhaadhiciyo xilligaas lagu beeraa intan xadaanaduna waa xilligaada waa 4 sano 4 jir 5 jir 6 jir ilmuhu waa inuu iskuulkii u gaaro marka xilligaasi hadii uu helo ilmuhu meel uu ka baranayo qiyamkii diinta waxa weeyaan waa tarbiyad aad u wanaagsan rabbi baan sujuuday farxad baan riyaaqay waalid baa i raacshay kuwaadan garaadshay cilmigan rumaystay naftaydan raabeeyey jahligan ka saaray runtiina xadaanadu tarbiyadu way ka horeysaa tacliinta doorka ay qaadatana waa ka badan tacliinta waxa ka badan waa tarbiyada weeyaan marka ubadku marka uu ilmuhu dhasho ilaa iyo xilliga uu gaarayo 6 jir wuxuu qaataa baa waxa tarbiya la yiraahdo tarbiyaduna waa maxay siday sheegeen walaaladii iga horeeyay waxa la baraa ilmaha mabaadi'da nolosha waa maxay وصيدو إسقو مستقبل كيس إنه المهير مركز واد أركتين مركز صار شو فدي ببرتا جرجورة ببرتا كعد ببرتا كل هذه وحاصل لأنه ونلشة دي وحي أساسي كها برشة أو برنا يو وادي أركو وقعة وفريستا إستقع دونا إنه سمايو سيدا درت يد بحال هذا التربية قبل التعليم التربية وحي كهر رئيسا وحبرشة وأساسكي يوالكي وحلو برني وحلا برنا النظام كوحل هذا حضانة دونا ama waxa la yiraahdaa keejigu inta badan ma aha doorka ciyaartay wax barasho ma aha waa tarbiyad oo ah weelkii loogu diyaarinayay ilmahan inuu wax barto qulna maxamed huwa allah ilaahi ahad wa kali allah ilaahi samad wa kabaahil wala naqdo lam yalid lam dalin walam yulad isna wax ma dalin walam yakun masugnan lahu isaga kufuwan ahad qof u dhigma yani waan ku faraxsanahay qaybta dambe ay noogu soo siyaadisay oo dhalaankaygii de baranayaan waxa kale ay ku soo kordhisay dikoorka isna waa farxad inteeda leeg ma sha Allah aad baan ugu hambalyeynaya macalimadeeda Leila iyo macalimiinta kale ee maxadka dhigtaba jazakallahu khayr baan leenahay abuurka dadka dhamaan dariiqii nabiga raac haday cindiinta waa sharafta kugu dadan adiga jidhkaaga dabool walaal hooyo kasta waxay jeceshahay in ilmaheegu wanaagsanaado tarbiyad wanaagsan helo laakiin kayf sideen ku helaynaa baa taala meesha imikana waxaad moodaa in badan in xadaanooyin far badan markaasi magaalada ay ka furan yihiin inta in ka badan runtii waa loo baahan yahay waxa weeye markaasi ilmuhu wuxuu uga baahi badan yahay in la qurxiyo jasadkiisa sare in ruuxdiisa la qurxiyo oo fikir lagu abuuro haddii cibaado noqoto iyo haddii akhlaaqadiisa noqotaba ayuu uga baahi badan yahay inaan markaa intaan dhergino aan dhar qurux badan oo xidhno inta badanna waxaynu ku dadaalnaa haddaan hooyooyinahay ilmaheennu inuu si guud u qurux badnaado laakiin waxa ka muhiimsan inaan tarbiyadiisa ku dadaalno ahaantii waxaan aad iyo aad idinku mahad ah oo idin sharaf ah oo ku dayasho mudan ururkan falaax oo ah dumar iyo hablo maanta dadaalay sameeyay maxaan raadayay jadwal qurux badan oo ay ku soo barbaariyeen arday iyo hablo ay waliba bilaash ugu dhigeen oo ay iyagu soo saareen alxamdulillaah tarbiyadu islaamku in lagu barbaariyo hablaha aad ayay u qurux badan tahay cida ugu wanaagsan ee in lagu barbaariyo diin ama asluubta diineed iyo islaameed waxay ugu wanaagsan hablaha weeyaan islaamu khamsa awwaluha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.